halkani waa Wacaal Media kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena caawa hadii waalidmo waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xaalad quusa oo ka taagan magaalada Boorame ee gobolka Awdal meedad daadsan wadooyinka magaalada isbitaalkii weynaa ee magaalada Boorame oo la soo sheegayo in ciidamada Somaliland ay gudaha u galeen fafaahinta dab culus oo ka kacay qaybta keedka daawooyinka isbitaalka magaalada Boorame xaaladda oo ka sii dareyso waxaan idin wadaagi doonaa faahfaahinno iyo macluumaadkii ugu dambeeyay wax walba uga baahan tahay xaaladda magaalada Boorame qodobada kale waxa kamid noqon doono wararka la xiriira ciidamada cusub ee Somaliland ay caawa la soo sheegayo inay geysay magaalada muxuu yahay qorshaha cusub ee madaxweyne Ciro xilli maanta uu ku dhawaaqay in magaaladaasi laga joojiyay saylac qorshihii lagu soo bandhigi lahaa buuga xeer ciise hadda waxa la wadaagi doonaa isbedelka cusub ee xukuumadda Somaliland galabta ciidamada u dirtay gudaha magaalada Boorame xaaladda taagtaaga ah ee taagan dhalinyaradii oo hubka qaatay xilbaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo arintaas soo farageliyay hadda waxa idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay xilbaanada gobolka Awdal ka soo jeedo oo si xun loogu weeraray fadhigii baarlamaanka ee maanta xilbaanada oo la sheegay in qaarkood loo gacan qaaday wasiiro ayaa ku jiro oo ka soo jeedo gobolka Awdal oo gacan qaad xun ka kulmay xilbaano kale oo reer waqooyi ah hadaba ceebtii iyo fadeexadii ka dhacday fadhigii baarlamaanka ee maantana war dheer ayaan idinka keenay qaybtan qodobada ayaa ku soo koobi doona hadii oo la idmo si gaar ah waxaan u dul istaagi doonaa xaaladda quusta ah ee laga soo warinayo magaalada Boorame soo dhawaada saaxiibayaal hadii aad tasaabiin ugu soo biri muuqaalka like saar aragtida wax dhisaysan ugu reeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha subscribe saar barteen YouTube aan ku bilaawno wararkeena wararka naga soo gaarayo magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa caawa waxay ku waramayaan in xaalad adag ay ka taagan tahay magaalada iyadoo ay marka ka dambeysay si xoogeysanayaan rabshadaha ka socanayo magaalada ee lagu diidan yahay maamulka uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro iyo doonistooda ku aadan talaabooyinka ay isugu dayeen marka hore in booga xeer ciise lagu soo bandhigo magaalada Saylac kadibna xaaladdu waxay hadda isku rogtay gadood la xiriira dadkii la dilay oo ay doonayaan dadka reer Boorame in jawaab loo helo ku dhawaad 10 ruux ayaa geeriyootay tiro kaleeto intaasi ka badan way ku dhaawacmeen rabshadaha ka socdo magaalada Boorame kadib markii ciidamada Somaliland ay risaas nool u adeegsadeen xukuumadda Somaliland oo xaalku ku xumaaday ayaa waxa ay bilowday in ay isku daydo in dareenka dadka shacabka ah ee cirka isku sii shareeraya marka ka dambeysay inay xakameeyso ayaa la soo sheegayaa in ay maanta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu qaaday talaabo uu ku muujinayo in xaaladda uu ku qaboojiyo waxaana uu ku dhawaaqay in bandhiga buuga xeer ciise ee magaalada Saylac la joojiyay hadaba madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro go'aankaasi uu qaatay waxba kama uu soo bedelin xaaladda magaalada wilna waxa la soo sheegayaa in banaanbaxyadii ay sii socdaan dadkii ay dhigayaan dareenkooda muujinayaan meedadka iyo dhaawaca wili uu tirabeel u yahay waxa aanan la aasin dadkii ku waxyeeloobay risaasta ciidamada Somaliland marka xaaladii ugu dambeeyay ayaa sidaas la soo sheegayaa iyada oo xaaladaasi quustaana ay ka taagan tahay wili magaalada hadaba madaxweyne Ciro waxa uu yiri risaasta dadka shacabka ah laga joojiyo ciidankiisa wuxuu sheegay inay magaalada ka soo baxaan macnaha waxa uu ciidanka Somaliland uu ku amray inay magaalada isaga soo baxaan laakiin ma dhacdo waa maya ciidanka Somaliland wali magaalada ku sugan yihiin waana sababta ay xaaladda ay halka ugu sareeyay ay marmarka ka dambeysay isugu sii shareertay dhinaca kale to xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan arintan ayaa ay maanta isku dagaaleen xildhibaano reer waqooyi ah gaar ahaan xildhibaanada beesha Isaaq iyo xildhibaanada Samaroon ayaa kulankii maanta laba garab u kala baxay wasiir Maxamed Bulaale oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa lagu feeray kulankii baarlamaanka waa nin ka soo jeedo gobolka Awdal maxaad uga hadlaysaan arintaas iyo maxaad u soo gudbinaysaan mooshin ku aadan xaaladda magaalada Boorame ayaa lagu feeray muuqaalkan ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada marka waxa rabaa in ay la daawato بوليس داوي لبض حلبان بنانك لقي لبض حلبان إلك عسى وزير محمد أمين لبض بنانك لقي
xildhibaanada bannaanka hala geeyo waxaan codsanaynaa inaad fadhiistaan